kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhurnimo ee idaacadda kulan qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona dowladda Mareykanka oo muddo hal sano ah ku kordhisay cunaqabataynta dhaqaalaha ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo furtay bixinta baasaboorada oo ah in muddo xayirna UK oo xayiraad saartay dalal horle madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo beeriyay in villa Soomaaliya ay soo qaban qaabisay shirka bari lagu wado inuu ka dhaco teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordhay ayaad ku maqli doontaan daawadayaal intaan warku ku guda jirno ee u diyaar garooba iyagoo fidsan dowlad goboleedka Puntland ayaa beeniyay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo qaban qaabiyay shirka lagu wado in magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Afisyooni uu ka furmo wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dube ayaa xalay sheegay in Farmaajo uu shir isugu yeeray madaxda maamulada kaas oo sabtida ka furmaya xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho dowladda Puntland waxa ay soo dhaweysay dadaalka ay wado beesha caalamka ee ku saabsan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashada waxaana la isla gartay in sabtida 3 bisha Abriil sanada 2021 madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadaan shir hordhaca u noqdo shirka wada tashiga arrimaha doorashada ayaa lagu yiri war ka soo baxay Puntland waxa uu intaasi ku sii daray warka Puntland shirka oo ay soo qaban qaabisay beesha caalamka ayaa ujeedkiisu yahay in madaxda Soomaaliyeed ay iska afgarad ka gaaraan ajandaha shirka iyo sida ugu habboon ee uu qabsoomayo shirka wada tashiga beesha caalamka oo waday cadaadis xoogan ayaa ugu dambeyn waxa ay shir isugu keeni doontaa maalinta sabtida madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirka oo albaabada u xiran yihiin waxa qayb ka ah beesha caalamka waxaana laga wada hadli doonaa ajandaha shirka inta uusan si rasmi ah shirka uga furmin xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho kaas oo lagu lafaguri doono arrimaha doorashada ee Soomaaliya dowladda Ingiriiska ayaa 4 wadan oo kala ku dartay xayiraadaha coronavirus kuwaas oo kala ah wadamada Bangladesh, Kenya, Pakistan iyo Philippines liiskada xayiraadaha socdaalka iyadoo ay jirto walaac laga qabo noocyo cusub oo kamid ah cudurka coronavirus waaxda gaadiidka ayaa sheegtay in xayiraadihii ugu dambeeyay ee ka dhaqan galayaan England laga bilaabo 9 bisha Abriil sanadka 2021 iyadoo la raacayo shuruudaha xayiraadaha safarka booqdayaasha caalamiga ah ee ka dhoofay ama soo maray wadamada 10 maalmood ee ka horeeyay ayaa loo diidi doonaa in ay galaan wadanka Ingiriiska muwaadiniinta Ingiriiska iyo Irishka iyo kuwa kale xuquuqda deegaanshaha UK way soo gali karaan laakiin waa in ay karantiin ku noqdaan hotel ay dowladdu ogolaatay muddo 10 maalmood iyagoo iska bixinaya qarashkooda marka 4 dal lagu daro waxa jiri doona wadar ahaan 39 dal oo ku jiro waxa loogu yeero liiska cadda ee wadanka kuwaas oo ay ka mid yihiin Brazil iyo Koonfur Afrika halkaas oo lagu aqoonsaday 2 nooc oo fayraska kamid ah dowladda Soomaaliya oo furtay bixinta baasaboorada oo in muddo ah u xayirnaa xanuunka coronavirus dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u furtay qaadashada baasaboorka Soomaaliga oo dhawaan la joojiyay sabab la xiriira cudurka safmarka ah ee coronavirus war ka soo baxay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ilaalinta tallaabooyinka ka hortagga cudurka safmarka ah ee coronavirus sidoo kalena waxa la dhimay dadkii sida maalinlaha u imaan jiray xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya dowladda Mareykanka oo muddo hal sano ah ku kordhisay cunaqabataynta dhaqaalaha ee Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay ku dartay muddo sanad ah cunaqabataynta lagu xayiray dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo labadii madaxweyne ee ka horeysay Barack Obama iyo Donald Trump ay horay talaabadan oo kale u qaadeen war ka soo baxay Mareykanka madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu saxiixay warqadda kordhinta cunaqabataynta dhaqaalaha Soomaaliya ee la cuskaday arrimaha dhanka amniga iyadoo la qadarinayo xaaladda Soomaaliya amniga iyo siyaasadda waxa ay ku socdaan meel qatar ah siyaasadda qaran ee arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu qiimeeyay xaaladda aan caadiga ahayn sidaas ayaa lagu yiri warqadda aqalka cad ee wadanka Mareykanka ka soo baxday sababta xaaladda degdega ah dhalisay ayaa lagu dhawaaqay 12 Abriil sanadii 2010 waxaana tallaabada la qaaday 20 Juulaay sanadkii 2012 waana in aan si wadnaa xayiraada laga bilaabo 12 Abriil sanada 2021 ayaa kamid ahaa erayadii lagu qoray qoraalka
madaxweynaha Mareykanka Mr. John Biden ayaa sheegay in uu ilaalinayo amarka tirsigiisu uu yahay 13,556 taasoo ka dhigan inuu sii soconayo 12 bilood ee soo socota waana qiimeyn lagu sameyn doonaa sanad kadib sida ay sheegtay warbaahinta Mareykanka oo si qoto dheer u gashay nuxurka cunaqabataynta lagu soo rogay dhaqaalaha Soomaaliya. daawadayaal waxa intaas ku soo afmeerinaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo halkaan aad ka daawanaysan idaacadda kulan intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.